5 sababood oo caadi ah oo keena dagaalka guurka iyo sida looga fogaado. Inaad noloshaada qof la qaadato waa riyo laakiin had iyo jeer ma fiicna. Waxaa hubaal ah inay jiraan xaalado walaac leh iyo ismaandhaaf aad adiga iyo lamaanahaaga aad la kulmi doontaan mararka qaarkood. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah sababaha ugu badan ee keena dagaalka guurka iyo waxa aad samayn karto si aad isaga ilaaliso. Isgaarsiin xumo. Xiriirka xun ayaa laga yaabaa inuu yahay asalka dhibaatooyinka badan ee guurka. Waxay keeni kartaa ismaandhaaf, iil iyo ka fogaansho. Lamaanayaal badan ayaa sidoo kale doorta inay iska indhatiraan dhibaatooyinka iyagoo aan ka hadlin. Ma jiro xiriir shaqayn kara haddii aysan jirin xiriir cad oo u dhexeeya labada qof. Habka ugu fudud ee aad ku wanaajiso xidhiidhka xaaskaaga waa inaad ku bilowdo dhegaysi wanaagsan. Tani waxay kaa caawin doontaa abuurista meel bannaan oo lamaanahaaga ah si uu isu muujiyo oo uu u abuuro wadahadal dhexdiina ah. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Dhibaatooyinka dhaqaale. Dhibaatooyinka dhaqaale waa walaac nololeed oo weyn. Xataa haddii adiga iyo lamaanahaagu aydan la kulmin dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah, waxay noqon kartaa sabab muran. Waxaa laga yaabaa inaad isku khilaaftaan habdhaqanka kharash garaynta midba midka kale ama sida loo badbaadiyo oo loo maalgeliyo lacagtaada. Si aad uga fogaato inaad ku dagaalanto dhaqaalaha, waa inaad si joogto ah ugala hadashaa faahfaahintan lamaanahaaga oo aad ka fogaato isgaarsiinta. Waxyaalaha muhiimka ah ee ay tahay in la tixgeliyo ayaa ah sida aad lacagtaada u kharash garayso, yoolalkaaga maaliyadeed ee wadajirka ah iyo mudnaanta. Waajibaadka aan sinayn. Dagaaladu waxay bilaabmi karaan marka mid ka mid ah lamaanuhu uu dareemo inay tahay inay qaadaan culayska mas'uuliyadaha ee kan kale uu dayacay. Tani waxay dhici kartaa sababtoo ah isgaarsiin la'aan, qaababka barbaarinta kala duwan ama aaminsanaanta kala duwan ee shaqada guriga. Dagaaladaas oo kale waxaad uga fogaan kartaa xiriirkiina adiga oo si cad uga wada xaajooda howlaha u baahan in laga qabto gurigaaga iyo sidii loo qaybsan lahaa. Tani waxay kaa caawin doontaa in shaqada guriga ay idinka yaraato labadiinaba. Rajada aan la gaarin. Rajooyinka aan la fulin waxay keeni kartaa qanacsanaan la'aan xagga xiriirka. Laakiin haddii lamaanahaagu aanu garanayn waxaad rabto, waxaa hubaal ah inay jiraan baahiyo iyo rajooyin aan la daboolin. Sida aad tan uga fogaan lahayd waa adiga oo si hufan uga wada xaajooda waxa adiga iyo lamaanahaagu aad ka filanaysaan midba midka kale marka ay timaado maaraynta dhaqaalaha, korinta carruurta, iyo arrimaha kale ee muhiimka ah ee guriga. Arrimihii hore ee aan la xalin. Marka arrimaha la xalin waayo, waxay iman karaan dagaal dambe oo ay hiisad ka dhex abuuraan adiga iyo xaaskaaga. Waxaa fiican in la xalliyo dhibaatooyinka isla marka ay dhacaan si looga hortago in ay noqdaan kuwo halisa hadhow. Qirashada khaladaadkii hore ama arrimahaagii daacadnimo waxay kaa caawin kartaa inaad hore u socoto. Haddii arrimaha qaar ee la soo dhaafay ay sii jiraan oo ay dhibaatooyin ku abuuraan xiriirkaaga, waxaad caawinaad ka raadsan kartaa la taliya xirfad leh si loo xalliyo arrimaha soo noqnoqda.